بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا مركله iyo barnaamijkii wararka maanta qodobada aan idinkugu haynana waxa kamida dagaal qaraar iyo duqeymo culus oo u dhaxeeya xoogagga Xisbullah iyo ciidamada Israa'iil ayaa ka soconaya koonfurta Lebanon iyadoo qasaare kala duwanna la soo warinayo ururka Xisbullah oo shaaciyay inay gubeen gaadiid dagaal iyo agab military oo ay leeyihiin ciidamada Israa'iil waxaa ka mid ah gaadiidkaasi taangi iyo cagaf-cagafyada ciidamada oo la qaranamsaday gudoomiyaha baarlamaanka Iran oo si cad u sheegay in Mareykanku dhiiqa uusan ka bixi doonin uu ku gali doono marinka Hormuz madaxweyne Trump oo shaaciyay waqtiga ay ku qaadan karto inay guul kaga gaaraan haddii ay dib u qarxo dagaalka Iran ay kula jiraan Iran oo dhankeeda sheegtay in Mareykanku uu beegsaday doonyo rayid ah isla markaasna uu ku dilay ugu yaraan 5 qof. 3 qof oo Falastiiniyiin ah oo lagu dilay weerarada Israa'iil ee marinka Gaza 24 saac ee la soo dhaafay. dhammaan qodobadan iyo kuwo kale oo faahfaahsan wixii waraa ee degdega ee soo kordhay intaaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. Maanta waxaynu ku bilaabeynaa wararkii ugu dambeeyay ee xiisadda Iran iyo Mareykanka. gudoomiyaha baarlamaanka Iran Maxamed Baaqir Qalibaaf ayaa sheegay in Mareykanka iyo xulafadiisu ay halis geliyeen amniga maraakiibta iyo sahayda shidaalka ee ka gudbaysa marinka Hormuz kadib markii ay jabiyeen xabad joojinta isla markaana ay soo rogeen xanibaad. Qalibaaf ayaa sheegay in nidaam cusub oo ku saabsan marinkan uu hadda si tartiib ah u xoogeysanayo waxaana intaasi uu ku daray in xaaladda hadda jirta aysan Mareykanka u dulqaadan karin isagoo xusay in Iran aysan weli si buuxda u bilaabin tallaabooyinkeeda. docda kale madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in haddii dib loogu laabto dagaal ka dhan ah Iran ay qaadan doonto 2 ilaa 3 toddobaad in lagu gaaro ujeedooyinka military waa sida hadalka oo u dhigay. Trump ayaa ku andacooday in inta badan hawlaha la fuliyay isla markaasna waqtiga haray uu kooban yahay wuxuu carabka ku adkeeyay in la gaari doono heshiis sax ah ama si fudud looga guuleysan doono Iran dhinaca militariga wuxuuna sheegay in Iran aysan yeelan doonin hub nuclear. Trump ayaa sidoo kale waxa uu cadeeyay in la wareegista kaydka uranium-ka aadka loo kobciyay ay tahay qayb ka mid ah heshiis kasta waxaana uu hoos u dhigay muhiimadda gantalada balastiga iyo maalgelinta kooxaha Iran ay taageerto isagoo sheegay in arrinta ugu weyn ay tahay in Iran aysan helin hubka nuclear-ka ah waxaana uu iska diiday in si cad uu sheego in Iran laga joojin doono taageerada kooxaha si ay siiso balse waxa uu sheegay in dhaawaca dhaqaale ee lagu hayo uu ka dhigi doono mid aan awoodin inay taageerto kooxahaasi. Trump ayaa sidoo kale waxa uu xusay in Mareykanka uusan burburin doonin ciidanka caadiga ah ee Iran marka laga reebo ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ah oo sida uu hadalka u yidhi. Wahagaaga wararkan aynu ku sii soconnay sarkaal military oo reer Iran ah oo aan la magacaabin ayaa sheegay in dabkii ka kacay dekedda Fujairah ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta uusan ahayn weerar Iran ay qorshaysay balse uu ahaa natiijada faral military oo Mareykanku mas'uul uu ka yahay. Wuxuu sheegay in waxa dhacay ay ka dhasheen isku dayo lagu abuurayo marin ay maraakiibtu si qaanuunka ka baxsan uga gudbaan marinka xasaasiga ah ee Hormuz. Sarkaalka ayaa intaasi ku daray in ciidamada Mareykanka la xisaabtamo isla markaasna ay tahay inay joojiyaan adeegsiga xoogga ee hababka diblomaasiyadda iyo faralka military ee ay sameynayaan kuwaasi oo sheegay inay saameyn ku yeelanayaan dhaqaalaha adduunka ee caalamka. war kale oo Iran la xiriira laamaha ammaanka ee dalkaasi ayaa sheegay in ciidamada Mareykanku ay weerareen doonyo rayid ah taasi oo sababtay dhimashada ilaa 5 qof waxaana ay diideen in doonyahaasi ay lahaayeen ciidamada IRGC ee Iran iyagoo ku adkaystay inay ahaayeen doonyahaasi kuwa rayid. Iran waxay sidoo kale sheegtay in maraakiibta Mareykanku ay isku dayeen inay galaan marinka iyagoo damiyay qalabka raadaarka ee lagula socdo balse markii la shiday la ogaaday maadaama ciidamada badda ee Iran
ay si joogto ah u kormeerayaan gobolka ammaankiisa. ciidamada Iiraan ayaana markaasi bixiyay digniin iyagoo riday rasaas digniin ahayd oo ay ku jiraan diyaarado dagaal, gantaalo iyo madaafiic, taasi oo keentay in maraakiibta Mareykanku ay dib uga laabtaan halkaasi. Iiraan ayaana digniin kala bixisay mar kale iyadoo sheegtay in isku day kasta oo loo arki doono jebinta xabad joojinta si adag loo wajihi doono. wararka dhanka diblomaasiyadda haddii aynu eegno, wasiirka amuuraha dibadda ee dalkaasi Iiraan Cabbaas Araaqji ayaa maanta u safri doona Shiinaha si uu ula kulmo dhigiisa dalkaasi, iyagoo ka wada hadli doona arrimaha gobolka iyo xiriirka labada dhinac. safarkan ayaa imaanaya ka hor booqashada la filayo in Donald Trump ku tago Shiinaha, taasi oo muujinaysa dadaalka Iiraan ee xoojinta xiriirka dhanka istiraatiijiga ah. booqashadani ayaa sidoo kale leh muhiimad dhaqaale oo weyn maadaama Shiinaha uu ka soo dhoofsaday Iiraan ilaa 1 milyan oo fuusto oo saliid ah maalintii, isla markaana uu yahay bixiyaha ugu weyn ee badeecooyinka asaasiga ah ee gala warshadaha Iiraan. waxaa sidoo kale la sheegay in xanibaadda badeed ay hoos u dhigtay ganacsigaasi, iyadoo Iiraanna ay ka fiirsanayso wadooyin dhuleed oo ay badeecooyinka kaga soo dejiso Afghanistan iyo Pakistan. war kale oo coladan la xiriira, shabakadda wararka ee CBS ayaa sheegtay in Kuuriyada Koonfureed ay dib u eegayso mowqifkeeda ku aadan ka qaybgalka howlgalka military ee Mareykanka ee Marinka Hormuz kadib markii qarax lala eegtay markab xamuul oo ay leedahay Kuuriyada Koonfureed, kaasi oo dab u ka kacay. wasaaradda amuuraha dibadda ee dalkaasi ayaa sheegtay in dabkii la dimeeyey, isla markaasna dhammaan 24 shaqaalaha ee saarnaa markabkaasi ay bad qabaan. arrintaasi ay ku dartay inay si taxadar leh u qiimeynayaan mowqifkooda iyagoo taa ku saleynaya qawaaniinta caalamiga, amniga marinada badda iyo xaaladda amni ee jasiiradda Kuuriya. waa hagaag haatana wararkii ugu dambeeyay ee xiisada colaadeed ee Xisbullah iyo sidoo kale Israa'iil aynu qoraansano. ururka Xisbullah ayaa sheegay inay weeraro ku qaadeen ciidamada Israa'iil ee koonfurta Lubnaan ku sugan, iyagoo beegsaday askar iyo sidoo kale gaadiid militari oo ku sugnaa aagga habayada lagu magacaabo. ururka reer Lubnaan ayaa sidoo kale waxay sheegeen inay gubeen taangi ay leeyihiin ciidamada Israa'iil oo ku sugnaa deegaanka Al-Qawza ee wadankaasi. warar kale ayaa Xisbullah waxa ay sheegeen inay ku beegsadeen cagaf-cagafyada ciidamada Israa'iil ay leeyihiin, kuwaasi oo ku sugnaa magaalooyinka Deir Azoor iyo Deir Saryaan iyo sidoo kale magaalada kale ee Rashaaf ee koonfurta wadanka Lubnaan. war kale oo coladan la xiriira, ciidamada Israa'iil ayaa lagu soo waramayaa inay soo saareen wargelin degdeg ah oo dadka degan dhowr magaalo oo ku yaala koonfurta Lubnaan ay ku wargelinayaan inay iskaga baxaan. magaalooyinkaasi waxaa ka mid ah Jabshiit iyo Sarifa, waxaana la sheegay dadka in ay magaalooyinkaasi ay iskaga baxaan ilaa iyo 1,000 mitir. warkan ayaa waxa uu sheegayaa in ciidamada Israa'iil ay ku andacoonayaan in goobahaasi weerar ay ka soo qaadaan dagaalamayaasha Xisbullah iyo sidoo kale inay doonayaan inay burburiyaan agabyo ay Xisbullah leedahay, kuwaasi oo ay u adeegsadaan wasaadalka loo yiri weerarada ka dhanka ah militariga Israa'iil. waa tahay, bal markana aan eegno qodobada kale ee wararka maanta ku jira. bariga dhexe haddii aynu eegno, gaar ahaan kuwii ugu dambeeyey, taliska dhexe ee ciidanka Mareykanka CENTCOM ayaa hadda war ay soo saareen waxay ku sheegeen in markabka diyaaradaha dagaalka xambaara ee USS George H.W. Bush imika uu soo gaaray badda Carabta, isla markaasna uu ka qayb qaadan doono howlaha military ee lagu doonayo in lagu galbiyo maraakiibta ku xayiran Marinka Hormuz, taasi oo qayb ka ah waxa loogu yeero mashruuca xorriyadda. dhinaca kale, xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka oo xogayaha dagaalka Pete Hegseth iyo taliyaha guud ee taliyaasha ciidamada oo goordhow shir jiraad ku qabtay Pentagonka ayaa waxay sheegeen in haddii amar la siiyo ay sugayaan in markaa aan ku celiya halkan, in haddii amar la siiyo ay bilaabi doonaan dagaalka ka dhanka Iiraan, isla markaasna ciidamadu ay u diyaarsan yihiin inay fuliyaan si degdeg ah howlgallada dhanka militariga. waa si hadalka loo dhigay. warkan oo faahfaahsan iyo wixii ku soo kordha barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbinaynaa haddii alla idmo. waa hagaag daawadayaal, goordhow waxaan u gudbaynaa falanqayn ku aadan xaaladda colaadeed ee bariga dhexe. Mareykanka iyo Israa'iil oo sidoo kale laga yaabo inay qaadaan weeraro ka duwan
kuwii bishii Febraayo ee dagaalkan bilowgooda ahaayeen. Sidoo kale waxaan kusoo gudbin doonaa falanqeyn ku aadan waxa laga filan karo Iiraan haddii weeraradani ay dhacaan. Balse marka hore aynu ku hakano qadar xayeysiinaha. Soo baxaya warar sheegaya in Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil lagu wado inay qaadaan duulaan ka duwan kii bishii Febraayo ay ku weerareen Iiraan. bal maxaa laga ogsoon yahay arrimahaasi oo ugu dambeeyay Mawlid? nimca warbixinada ugu dambeeya waxaa ka mid ah telefishinka CNN ee laga leeyahay waddanka Mareykanka ayaa waxa uu sheegayaa in miiska uu saaran yahay qorshahan weerar military oo ka dhan ah Iiraan. waxaana lagu soo warramayaa in weeraradan ay ku wajahan yihiin goobaha tamarta, haddii ay noqon lahayd kuwa shidaalka iyo kuwa kale korontada laga dhaliyo. lama oga in la beegsan doono warshadaha kale iyo buundooyinka kuwaasi oo markii hore Donald Trump dhihi jiray bartilmaameed ayaynu ka dhiganaynaa. waxaa kaloo la sheegayaa inay qayb ka yihiin hogaamiyaasha Iiraan. lama oga ilaa iyo hadda hogaamiyaasha siyaasadda inay qayb ka yihiin bartilmaameedkan, waayo markii hore inta badan waxaa la beegsanayay hogaamiyaasha ciidanka iyo xubnaha la oran karo arrimaha ciidamadu ku lug leeyihiin, gaar ahaan golaha amniga qaranka iyo sidoo kale wasaaradaha qaabilsan ciidamada sida wasaaradda gaashaandhigga oo kale iyo wasaaradda sirdoonka. laakiin hadda waxaa lagu soo koobay hogaamiyaasha Iiraan. marka tani waxay ka macno tahay in la beegsan doono madaxweynaha, wasiirka arrimaha dibadda, gudoomiyaha baarlamaanka iyo xubnaha kale ee rayidka ah. taas ilaa hadda ma cadda, laakiin xogta CNN ay tabinaysaa waxay sheegaysaa in macluumaadkaasi hadda ay soo baxeen. telefishinka CNN wuxuu arrintan ka soo xiganayaa ilo wareediyo ku dhow waaxda dagaalka ee Mareykanka. dhanka Israa'iilna sidoo kale waxaa ka soconaya qabanqaabo arrintan la xiriirta. shir waxaa jiray ay yeesheen golaha wasiirada Israa'iil ilaa 7 saacadood ayuu kulankani u socday oo Netanyahu uu shir gudoominayay. waxaana la sheegay in looga hadlay suurtagalnimada arrintan in weerarkan Israa'iil ay fuliso. ilaa hadda lama oga cidda weerarka bilaabi doonta iyo inay wadajir u wada qaadi doonaan Mareykanka iyo Israa'iil sidii dhacday 28kii bishii February. marka waxaad moodaa xaaladdu inay tahay mid ku sii siqaysa dagaal balaaran inuu qarxo. waa gartay haddii qorshuhu yahay weerar kooban si Iiraan miiska wadaxaajoodka loogu qasbo inay timaado, taasi ma noqon kartaa mid dhici karta? maxayse khubarada ka tiri Iiraan inay noqon karto mid yeeli karta in miiska wadaxaajood ka imaato kadib weeraro lagu qaado? horta hadafka dagaalkan waa mid loogu talagalay in Iiraan lagu qasbo inay miiska wadaxaajoodka ay timaado. waa sida Mareykanka iyo Israa'iil ay ku doodayaan, laakiin taa calaamad su'aal ayaa saaran. waayo Iiraan qudheeda waxaa laga yaabaa in arrintan ay sii balaariso dagaalka, oo xitaa haddii la isku dayo in xabajoojin la sameeyo inay diido xabajoojintaasi. waayo hadda waxaa la isku hayaa waxay tahay Mareykanka oo doonaya Iiraan inay miiska wadaxaajoodka timaado iyadoo cunaqabatayn lagu hayo. marka iyadoo aan la weerarayn oo dekedaheedii la xayiray ayay diidan tahay miiska wadahadalka inay fadhiisato iyadoo xabad ay ku socoto. macnaheedu waxa weeyaan adigoo dhafoorka lagaga hayo bastoolad inaad miiska fadhiisato. markaasoo kale waxay kaloo kasii macno tahay haddii si kale loo fasiro dhegti inti lagu soo jiido in lagu fariisiyo kursi. taana waxay kaloo kasii macno tahay in laga guulaystay. marka Iiraaniyiintu waxay aaminsan yihiin inaysan joogin meel loo yeeriyo in wadahadal lagu qasbo inay yimaadaan miiska wadaxaajoodka. waa laga yaabaa sida arrintan dad badan ay ku doodayaan oo khubarada arrimaha dagaalka ka faalloota inay tahay ujeeddo arrintan Donald Trump laga dhaadhiciyay in haddii sidan uu sameeyo suurtagal ay tahay in Iiraaniyiintu ku qasbi karo, oo tan ay ka imaanayso dhanka Israa'iil. waxayna tani ku soo aadaysaa 48 saac kadib markii wadahadal qadka telefoonka ay ku yeesheen Netanyahu iyo Donald Trump. barnaamijyadan ugu dambeeyay ee aynu tabanay waxaynu ku soo qaadanay madaxweynihii hore ee waddanka Mareykanka Barack Obama oo si cad u sheegay in waxyaabahana hadda uu isticmaalayo Netanyahu Trump uu ka dhaadhiciyay dagaal in lagu qaado Iiraan in isaga dhowr jeer uu la yimid. waxaa laga hadlayaa 8 sano ka hor, 10 sano ka hor. wuxuu yiri waa diiday dhammaan arrimahaasi, laakiin waxa muuqata buu yiri inuu ka dhaadhiciyay Donald Trump Netanyahu in uu ku qanciyo dagaal in lagu qaado Iiraan. marka hadda qudheeda ma waxa dhici karta markaynu ka soo qaadan hadalkaasi oo kale in Netanyahu uu ka dhaadhiciyay Donald Trump haddii weerar kale la qaado in Iiraan lagu qasbi karo miiska wadaxaajoodka inay timaado
arrintaas guddeeda waxay noqon kartaa xisaab qaldan oo la isku dhibsanayo waayo iiraaniyiintu waxaa dhici kartaba sida ay sheegayaan falanqeeyaasha ama lafagorayaasha iiraaniyiinta in iiraan aysan miiska wada xaajoodka imaanba oo ay diiddo markaas waana tan hadda ay iiraaniyiintu ku dhegan yihiin qodobka labaad ee qodobada ay dalbanayaan heshiiska waxaa ku jira qodob oranaya waa in la damaanad qaadaa iiraan mar dambe aan la soo weerari doonin tiiba marka maraykanka waxay moodaa inuu ka gabanayo hadalkan Donald Trump uu leeyahay 3 ilaa 2 toddobaad ayaynu dagaalka ku soo afjaraynaa waxa la leeyahay arrintaasi waa xisaabtii hore oo maraykanku isku dhufsaday oo qaldantay labadii ku dar haddii ay 4 noqon lahayd marka uu ka dhigayo 6 waana sida hadda muuqata ayaa la leeyahay arrintaasi inay ku qaldameen ayay u muuqataa markii hore weli xisaabtii qaldanayd ay sabuuradii jeesta u qaateen waa gartay muulinteena ka bixin arrimaha ku saabsan in Iiraan miiskooda xaajoodka la keeno warkayga waxa ku jirtay in Trump uu yiri waxaan xoogga saaraynaa in Iiraan aysan gabi ahaan nuclear helin marnaba maxaa sababaha miiska looga saaray maxay tahay ajendayaasha ku saabsanaa in laga wada hadlo barnaamijka gantaalada iyo sidoo kale taageerada kooxaha iska caabinta gobolka Iiraan ay siiso Iiraan horta taa way diidan tahay gabi ahaanba in innaba haba yaraatee laga wada hadlo arrinka la xiriira gantaalada kooxahan iska caabintana muhiim ayay u yihiin Iiraan oo waxaynu ka warqabnaa dagaalku markii uu socday 40 maalmood Xisbullah dagaalkay soo gashay ilaa hadda way ku jirtaa wayna naafaysa runtii Israa'iil oo nidaamyada difaaca markii Iiraaniyiinta ay soo weeraraan oo gantaalo ay soo ridaan ama sawaariikhda culus ay soo ridaan kadibna Xisbullah ayaa iyada qudheed waxay ridi jireen diyaaradaha droniska iyo waliba gantaalo waxayna mashquulin jireen markaas nidaamka difaaca ee Israa'iil sidoo kale xuutiga ayaa iyagoo dhinac dagaalka ka soo galay marka waxyaalihii Israa'iil qasaaraha u geystay oo keenay xitaa xabajoojintan in lagu dhawaaqo wax ka mid ah dagaalka ay ku wada jiraan marka mar kastaba Iiraan ka tanaasuli mayso kooxaha iska caabinta laakiin waxa laga yaabaa markuu leeyahay Donald Trump arrintan hadda ka hadli mayno in Netanyahu uu ku doodayo eray waxa jiro aad ugu doodo oo leeyahay maska madaxa laga dilaa Iiraan marka wuxuu leeyahay haddii aan jabino oo ka guuleysano iska caabintan kale ma noqonayaan wax muhiim ah oo markaasi wayna ku guuleysan karnaa marka taas oo kale laga yaabaa inuu ka dhaadhiciyo uu yiri muhiim ma ahan Xisbullah iyo Xamaas iyo Xuutiga laakiin muhiim waxa ah inaynu jabino Iiraan oo maska madaxa laga dilo laakiin maskana madaxa laga dili karaa way su'aashii la isweydiinaya waayahay waxaan soo gaarnay Mawlid gabagabadii ma laga yaabaa in dhinacyo kale ay ku soo biiraan haddii dagaalka uu dib u qarxo waa laga yaabaa imaaraadka carabta oo kale aad buu u fafakanaya shalay wasaaradda gaashaandhigga imaaraadka carabta warbay soo saartay waxay sheegtay in aysan ka labalabayn doonin inay jawaab ka bixiyaan weerarada lagu soo qaaday iiraaniyiintu hadda waynu maqlaynaa faluuja magaalada la yiraahdo Fujairah inagu maana weerarin bay leeyihiin oo arrintan waa arrin maraykanka dhibaatooyinka ka wada gobolka qayb ka ah laga yaabo inay ula jeedaan asaga mas'uul ka ah laga yaabo inay ula jeedaan maraykanka la beegsanayay ma isan dhihin si toos anagu kamaana dambe laakiin waxay leeyihiin maraykanka ayaa mas'uul ka ah weerarka lagu qaaday magaalada la yiraahdo Fujairah waxaana socday qorshe ah in lagu diyaariyo wadiiqo maraakiibtu ay mari karaan waa tan shalay aynu ka sheekeynaynay oo Iiraan ay soo saartay qariirada cusub oo Mareyka Hormuz la xiriira waxa kaloo la xaqiijiyay in ciidamada Israa'iiliyiin iyo nidaamyada difaaca Israa'iil ay ku sugan yihiin ama la geeyba wadanka Imaaraadka Carabta marka Imaaraadku dagaalka inuu galo u badan tahay Kuuriyada Koonfureed kale hadda waynu maqlaynaa inay ka fiirsanayso marka waxay u badan tahay dhinacyo Mareykanka u heelinaya dagaalka inay soo galaan laakiin ilaa iyo hadda wax u soo heelin kara Iiraan ma muuqato ilaa iyo hadda waase dhici karta xaaladdu haddii ay isbedesho in Shiinaha iyo Ruushka si uun loo arko in dagaalka ugu lug yeeshaan ama haddii ay noqon lahayd inay Iiraan si toos ah hub u siiyaan laakiin ilaa hadda loo badi maayo si gaar ah Shiinaha dagaal inuu ku degdego marka haddii cid ay ku biirayso dagaalka waxay u muuqataa Mareykanka iyo xulafadiisu inay heli karaan in dagaalkan ay qayb ka noqdaan laakiin Iiraan waxa macna u sameeymayso haddii Kuuriya ku soo biirto ama Imaaraadka ku soo biiro Imaaraadka laftigiisa dagaalkan haddii uu galo isaga qatar isii gelinaya waayo sidaynu ognahay Israa'iil oo ka fog Imaaraadka Carabta intuu u jiro Iiraan ayaa arkayna si loo galay Imaaraadka marka u sokeeyaba waa jab rootiya
oo fargeetadii intii lagu geliyey afka lagu geliyey bay noqon kartaa marka laga hadlayo masaafada ay u jirta imaaraadka iiraaniyiinta qaar ka mid waxay leeyihiin ama qabsana imaaraadka gebigiisaba aan la wareegno awoodna way u leeyihiin marka jug culus inay gaarsiiyeen baa dhici karta imaaraadka hadda qudheeda waxay leeyahay xitaa haddii nabad ay dhacdo shirkadihii waaweynaa isku aamini maayaan imaaraadka inay mardaba xarun ka dhigtaan oo waxaa la aaminsan yahay halistan inay badan tahay waayo shirkado badan waxaa jiray ama London ama Washington ama xitaa bariga fog ka soo guuray oo magaalooyinka imaaraadka gaar ahaan magaalada Dubai xarun weyn ka samaystay oo halkaas ganacsi balaaran ka sameynaya shirkadaha suuq qudooda dhibaato culus baa ku imaanaysa marka waxaad moodaa imaaraadka inuu seef qoorta iska saarayo sida khubarada ay ku macnaynayso waa hagaag waan arki doonaa halka ay wax ku dambeeyaan intaas ay ku soo gabagabeynaa maanta barnaamijkii wararka maanta oo halkan si wada jira aniga wata macatan caada iyo mudane xaaji cabdi idin kaga soo tabinayay saado yeesha wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ku soo gudbino haddii aad ku cusub tihiin baraheena bulshada ee kala duwan oo aadan hore ugu xirnaynina nagu soo biira tan iyo inta dib ugu kulmi doono barnaamij midkan lacayna waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo amaana